بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ilaalinta deegaanka iyo ahmiyada oo islaamku siinayo waxaan soo qaadan karnaa aayad quraan ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmooyinka uu ina siiyay oo ku tilmaamayo waxyaabo badan oo deegaanka kamid ah iyo dadku markii ay deegaanka ka faa'iideysan waayaan ama ay si xun ugu dhaqmaan sida ay noloshooda u xumaanayso hadii ay si fiican uga faa'iideystaan oo ay deegaanka ilaashadaan nolol fiican ay noolaanayaan Ilaahay waxa uu leeyahay subhanahu wa ta'ala Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala lakum minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار آيات أسوأ أركيسان إنت مر إلهي وكسوع عليي لكم وحلق صوب بالله إلهي سبحانه وتعالى والله أبوري سماوات كي أرضى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء إلهي عرك وحو إذن كاكا كيني بي أيو إذن كاكيني مركا روب كاسي إلهي أيا إنو سخري ديغان كاسي أيو إنو ورابين أيا نعمة أيا دعيسة مركا بيها سي روبكا أو إلهي رولكو إنو دقايو إنان إلا شنو أيا لو باهن يهي وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إلهي وحو إذن سو صاري ميرو بيرو قروح داس أيا دعيسة إلهي سبحانه وتعالى وحو إنو سخري أمي إنسيي بضها oo ay doomuhu inoo maraayaan wuxuu Ilaahay ina siiyay wabiyada ayuu ina siiyay oo biyahaas inoo wada oo beeraha aan ka samaysanayno intaas oo dhan yaani waa nicmooyin badan oo Ilaahay ina siiyay oo Ilaahay uu yiraahdo nicmooyinka Ilaahay tirisaan yaani ma koobi karaysaan laakiin insaanka ayaa mid dulmi badan ah marka dulmiga uu insaanku dulminayo waa deegaankii oo haleeyo oo sidii loogu talagalay uga faa'iideysan waayo koonkan Ilaahay baa inoo sakhiray insaanku inuu saa u fahmo ayaa loo baahan yahay oo uu ka faa'iideysto Ilaahayna uu ku caabudo marka dhulkii iyo qaybihiisa kala duwan oo biyaha iyo dhirta iyo kulli ay ka mid yihiin waa waxyaabo loogu talagalay insaanku inuu manaafacadsado oo Ilaahay wuxuu yiri wasakhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu cir iyo dhul waxa ahaaday oo dhan idinka ayaa la idin sakhiray marka intaas oo dhan waxna loogu sakhiray waxay tahay inaan ka faa'iideysano marka deegaanka in la ilaaliyo oo aan dhirta la jarin in la abuuro ma ogiye oo biyaha wabiyada yaani laga faa'iideysto oo ina badda ku darsamin ayagoo aan laga faa'iideysanin oo beeraha aan laga samaysanin intaas oo dhan islaamkeen aad ayuu dhiirigelinayaa amal iyo shaqana dadka muuminiinta waa loo diray marka dhulku uu quruxdiisa la ilaaliyo oo soo wada baxo deegaankiisa oo qurux u yeeshana ilaahay quruxda wuu jecel yahay sida nabiga uu sallallahu alayhi wasallam inna allaha jamiilun yuhibbul jamaal markii la hagaajiyo oo dhulka yaani quruxdiisa uu soo baxo oo dadku ay ka shaqeeyaan oo nicmadaas ilaahay ay wada qabsatana waxa la rabaa inaan la halaynin oo aan la xumaynin sida ilaahay uu leeyahay ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها مركي دولك الهجاجية كذب حميننا مركي دولك العمرة أو الهجاجية وعباده مركي عبادة سينا سأو فهمنه يعني أن لين العبادة إن يكون كوبنتها أو كلية صلاة إيه صوم كإيه شعائر التعبد جا كون كان إلهي ونسيي وناس خيري أو صدق قلت لك أنا وقف إذا سننا عبادة إيه كم تهاي مركي هلا قف إذا يستو وحنا هذه يدوم هالعلنينا لأن الصوماليات استحل قانتي ururka loo yaqaano Somali Environmental Conservation oo barnaamijkan qayb weyn ka qaadatay hawlo kale oo waaweyn ka haysa si deegaanka loo ilaalin lahaa ayaguna way mahadsan yihiin cid walba oo deegaanka nala ilaalisana ayaduna way mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh